wax laga aamusi karo ma ahan micnaheeduna ma aha inaan iyada u jawaabayo ee waa inaan aan xaqiijiyo waxyaabaha jira ama aan ka hadlo wax laga aamusi karo ma waa madax bili aadan waa ilmo yar waa bihi nool yahay weydiina ilaahay ilaha qaatay in inta meel la soo fadhiisto la yiraahdo aniga dhalay marxaladaas la soo maray aabihina waa hebel horta waxaan dhaqan u leenahay ma aha marka hore gabadha walaashay waan u qiildeeyay oo waxaan lahaa waxay oran doontaa waa prank ama waxay oran doontaa waa 1 Abriil waan u qiildeeyay waxaas lahaa way ka noqon doontaa way ka fircilin doontaa marka jawaabaha bini'aadanka ay weydiinayaan dee xal baa u heli kartaa maadaama aanad wax aanad xaqiiq asiin karin ودعوة way sameyn weyday waan ismaqalnay waxay ii sheegtay sidii ay baraha bulshada ka sheegaysay inay ilmaheedu dhashay anuguna aabihi yahay mar labaad haddana dad iyada u dhow oo dadkii ka duwan ayaan ismaqalnay sidii dadka ii sheegan bay sheegeen inay ilmahan iyadu dhalin ilmahan oo hooyadii dhimatay Allah u haysto aabihi laakiin uu nool yahay marka ay soo qaadatay assalaamu calaykum intaanan muuqaalada soo socda idinla wadaagin iyo warbixinada iyo xogaha aan hayno waxaan idinka codsanayaa fadlan videoga thumbs up si haddii aadan hore subscribe u saarin nagu soo biir oo subscribe noo saar gambaleelkana furo all ka dhigo si video kasta markii aan soo dhigo uu kugu soo dhaco videoga share si bulsho badan ay noogu soo biiraan aad iyo aad ayaa mahadsantihiin halkaan nagala socotaan waa Sahra Sahan Channel haddaba sidaad uga jeedeen videoga qaybta hore ninkaasi waxa uu ahaa Farxaan Yare waa fanaan caan ah waxa uu hore u qabi jiray Rasmi Rice haddaba maxaa dhacay waxaad ogtihiin in ay kala tageen Rasmi Rice in ay Nairobi Kenya ku soo noqotay ayaad ogtihiin waxa dhacday muddadii ay Rasmi Rice iyo Farxaan Yare Hargeysa ku wada noolaayeen in ay shaaciyeen in ay Rasmi Rice uur leedahay marka bal haddaba wax yar oo aan idinka dabageeyay video yar ayaan idin tusayaa qof saddexaad insha Allah oo familka beerin doona Farxaan iyo Rasmi iyo ma sha Allah ilmahoodii marka waa war aad iyo aad u ugu farxay ma sha Allah Rasmi ما شاء الله وحسيدا قفكي حافظة كسبير لها أما ويلها نقضة أما قبلها نقضة ما شاء الله لكن حسيدا عنقي غيرك صوص دحين لها ما شاء الله ولدنا إلهي باب بحية وأنا هدية وقالسين الدنيا ده حتى واحد عضي إن Rasmi Rice 1 Abriil ay soo dhigtay video barteeda YouTube-ka ilmo yar iyada oo dhabta ku haysa oo ay shaacisay in ay 2 bilood ka hor dhashay ilmahaasina markii hore uu ka soo dilmi jiray balse ilaahigay uu u istaajiyay waxa ay sheegtay inay aad iyo aad ugu faraxsan tahay xaqiiqatan dad badan ayaa ka hadlay oo sheegay waa warayay Rasmi Rice ilma ma dhalin been bay sheegaysaa hase ahaatee isaguba waa uu sheegay Farxaan waxa uu yiri waxaan isdhahayay waxay oran doontaa waa April Fool Day yani beenta la iska sheegayay run ahaantii ma aysan samayn maxaa yeelay way iskaga aamustay waxay tiri way sheegtay arrinta wayna uga baxday balse Farxaan oo dadkii u soo hambalyeynayaan oo waad iska taqaanaa bulshadu waayadan dambe waxa ay jecel yihiin wax kasta oo la bumbuuniyo hase ahaatee waa uu adkaysan kari waayay ilaa uu maanta videogaasi soo duubay bal haddaba maxaa dhacay kadib waxa dhacday in Rasmi Rice videogii uu soo duubay Farxaan Yare ay haddadan ay jawaab ka soo bixiso marka maxay tahay arinta isweydiinta leh ayaa waxay tahay maxay tahay Rasmi Rice baranki haddii ay sameynayso maalinta beenta in ay been kale in ay soo qaadato miyaysan ahayn
maxay tahay arrinta ay u soo kicisay iyada iyo Farxaan arrintii dhexdooda taalay. run ahaantii waxaad dareemi kartaa laba qof oo kasta oo kala taga marka hore in aanan wanaag lagu kala tegin, wax unbaa sababay in la kala tago oo xanuun ayaa keenay. marka ma aargoosasho ayay ka ahayd, ma waxay ka ahayd arrintaa hala iska soo kiciyo, hala iska buunbuuniyo. bal haddana ila daawada Rasmi Rice oo video hadda barteeda YouTube-ka soo dhigtay kana hadlaysa arrintaasi in ay ahayd maalintii beenta oo Abriil 1-deeda. ma ka soo dhigay ana cuniga dhalay dadka waxay dhahayeen April Fool Day waaye. so hadda ani rabo ina been sheego oo beenta sii wada waa soo hadlaa waxa dhila April Fool Days ma ahan waa run arrinta aan sheega. tada kale arrinta haday runta April Fool Days ka hor soo galan lahaa anigoo dumar dhibkii dhibaatada la ii geystay waan dabool waan qariyay, laakiin waxa waa imtixaan dadka qaar mar aqligooda waa la tijaabiyaa. ani maalintii beenta adduunka barnaamijka soo dhigay baarana TikTok-geeda wixii soo galisay sidoo kale Hilal iga qaatay. It was prank, wax run ma ahayn, prank ahayd. Ahilna xaafadu joogay, ana sidoo kale xaafadan joogay, wax cuniga aan dhalay ma jirto. qof walba aqalna qaban wuu og yahay. haddaba waa kaas sida aad wada maqlaysaan, arrintii cirka ayay isku shareertay ilaa ay gaartay in ay Rasmi Rice si degdeg ah jawaab ku soo bixiso. run ahaantii taas ayaana annaga dhan wada filaynay, maxaa yeelay haddii kale arrintu waa lasii buunbuunin lahaa, cirka ayay isku sii shareeri lahayd. balse waxaan ku faraxsanahay in ay Rasmi Rice u soo jawaabtay Farxaan Yare. run ahaantii oo caawa si fiican u seexan doona. aad ayuu uga walwalay run ahaantii arrintaasi, ma ahan inuusan ku faraxsanayn, balse waxa marka lagaaga yaabiyo ama lagugu kadiyo waxa ay kugu keenaysaa in aad ula fajacdo oo aad la yaabto. hase ahaatee Rasmi Rice arrintan aad iyo aad ayay ugu shaqaysay oo ay dad badan maskaxdooda ay u gelisay run ahaantii in ay run tahay. aniga ahaan waxaan isdhahayay hooyo marka ay tiraahdo uur baa yeeshay, ilmo ayaa iga soo dilmay. run ahaantii ilmuhu waa dilmi karaa, haddana waa istaagi karaa, waan rumaysan karaa, waana beenaysan karaa. inay barank samaynayso waa iska dhici kartaa, inay ilmaheeda dhashayna way dhici kartaa. maxaa yeelay marka ilmuhu soo dilmo waa istaagi karaa, haddana ilaahay wuu istaajin karaa. marka aad iyo aad ayay barankigaasi dad badan uga gashatay. Farxaan Yarena waxa weeyaan nin hadal badan maaha. Rasmi Rice-na waa fanaanad aad iyo aad iyadana u qiimo badan. labadoodaba waxaan u rajaynaynaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo meel kasta ay ku nool yihiin. caalafkooda markuu kala dhamaadayna dadka in la isku sii diro ma wanaagsana. haddaba fiidiyogeennii maanta intaas ayuu ku egyahay. waxaan idin xasuusinayaa mar kale like-ta ha naga hilmaaminina, subscribe iyo share-na waan idin weydiisanaynaa idinka oo mahadsan. intaan fiidiyogan mid lamida ku kulmeynana waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barta commentiga noogu soo qeexa sida aad idinka u malaynayseen maalinta beenta 1 Abriil ay ku samaysay